horta waxaan u mahadnaqayaa aad iyo aad inoo caawiyey oo nala shaqeeyey xisbiyadii mucaaridka ahaayoo dhan wadaniyow ururiyada raayimka xisbiga ku soo baxayow aad iyo aad baa noo caawiseen waayo dad badan oo kulmiya ama dadka mucaaridka waxaa leeyihin muxuu uga jeedaa waa runtii waxaa sheegaya gaariga haddaad waddo muraayadda hore aad waxa khudbada socdaa ka arkaynin dee jar baad ka duuraysaa waad iska sheekaynaysaa waxay sameeyeen mucaaridad qarannimo ah haska kuwaato baran haddaad qaafto laakiin qaladka yaraynu samayna ama dhibaatada soo socota iyagaa sii qaylinayay markaa qolada reer kulmiye iyo shacabka inkooda war muxuu nimankaa mucaaridkooda u ammaanaya war haddaanay jeedalka iyo dekadii inala daba joogin waxaa laga yaaba lahayd jarba ka dhici lahayn waxa aynu mucaaridayeen iyo waxay sameynayeen waxaan u qaadanayaa inay waddanka ku toosinayeen waxyaalo badan oo waxay ahayd in shacbiga somaliland ii doortay oo igu sharfeen xilka dalka ugu mudan oo madaxweynaha ah oo fursad ii siiyeen inaan u adeego 7 sano tagay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa shacbiga somaliland inay xilkaa igmiyeen waxaan hadalka cadaynayaa shacbiga somaliland xilkaa 7 sano ay igmiyeen in aan si daacada maskax iyo fikir caqli ah iyo waqti iyo maal midnaba inaanan waxba kala harin oo ay isku sidkanaayeen noloshada taariikheed iyo somaliland siday hadal uga shaqeeyey waxaan se ogolahay bini-aadmi baa leeyahay hawl baa labadaa inaanan wax badan oo laga suwaayey aanan qabanin duruufo jira awgeed taasi ma ay aan hakansho iyo kalehleexsho waqti aan ka lumiyey waxay duruufo keentay waxaan taa u leeyahay ninka maanta imanayana taasoo kalea sugaysaa wuxuu baahayay baan garanayaa taageeradan kugu baahaya baan garanayaa waanadaan garanayaa maanta shacabka intaasoo taariikha isoo maamuusay xilka ay dhiibay maantana wuxuu iga baahan yahay inaan hawsha qaranka ku dhismayo ilaa inta aan noloshaydu jirto aan siday tahay u fuliyo laga dardaari maayo da'dan ahayla eragaan leey maanta somaliland waxay ku faanaysaa inay isku wareejinayso xilka wareejintii labada madaxweyne kii shanaad iyo kii lixaad lixdaa doorasho ee madaxweyneba waxay ku dhaceen nabad in lagula kala wareegay xilka waa taariikh sumad ah way somaliland leedahay lixdaana 4 ka mid ah ayaa lagu soo doortay hal qof iyo hal cod waa nasiib aanay helin dowlado badan oo dhaqaalo badan ama la ictiraafsan yahay qaranka somaliland waan ku hambalyeynayaa waddada ay mareen wada tashiga ah ay ku bedelayaan qof walba codkooda midna waan hoostaan ka xariiqayaa marka shacbiga somaliland dhibaatooyin ku jiraan canaantu waxay ku dhacdaa hoggaanka siyaasiga ah ka madax dhaqameedka lama canaanto ka madaxa diinta lama canaanto madaxda baacushtarka lama canaanto qalindheerta akaademiga lama canaanto wax walba waxa la saaraa qofka xilka siyaasadda haya waa dow oo dawladda midna ugu sarreeyay laakiin waxa hubaala dadka siyaasadda haya inay yihiin dadka had iyo jeer ugu nugul in somaliland wax yeelala dhexdooda ay kaga timaado ee iska dhowra ee qof walba ilaalinayo jaraa'id tiktok raadiyo gabayaa heesa dhammaantood waxa la magaabo siyaasi oo inta kale way wanaagsan yihiin taasina sax maaha waxaan leeyahay qof kastoo siyaasi oo mas'uul waxba ka qaldami karaan laakiin inuu ku dadaalayo dal kasta ha haye inuu dalka uu hogaaminayo halka uu wanaagsan gaarsiiyo laakiin dadka ay safkareen waayaan somaliland waxaa ku hambalaynayaa taa isku afkarteen inay sii wadaan waxaan imikana soo dhaweynayaa madaxweynaha la doortay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal soo dhawo madaxweyne gacanta midig saar بسم الله الرحمن الرحيم بكره waxaynu dhaarinaynaa madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda Soomaaliland minidka kadib doorashada kadibna isaga ayaa noqonaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Somaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo billahi tawfiiq congratulations madaxweyne ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Somaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo billahi tawfiiq